طبعا arrintan soo baxaysa oo la leeyahay madaarka la maalgelinayaa waxa weeye madaxweynaha wasiirkiisa madaxtooyada iyo wasiirkiisan kale ee qaabilsan maaragtay madaarka qaabilsan intuba khiyaano qaran bay ku jiraan haddii dastuurka Soomaaliland uu shaqaynayo saddexdoodaba khiyaano qaran bay ku jiraan waa in jeelka loo taxaabo dabcan taa iyada ah wax uga dhow Soomaaliland ma jirto khiyaano qaran buu madaxweynuhu ku jiraa iyo gruubkiisuba waxaana cad oo arkaysaan inuu Soomaaliya la shaqaynayo waxa cad oo arkaysaan Xasan iyo isaga inay dhiil ka dhaxeeyaan si loo diido Soomaaliland wanaageeda cid u dul qaadanaysaana ma jirto Cabdiraxmaan qof kasta oo maqlaya waa inuu ka fogaado waxa ku cad khiyaano qaran wuxuu ku jiraa high treason meeshii ugu koreysay oo khiyaano qaran buu ku jiraa madaxweynuhu maaragtay ka muuqda waxaynu dhammaanteen wada ogeyn beesha caalamkuna ay hoosta ka xariiqday Cabdiraxmaan Ciro dawladdiisa in ciidankii qaranka raggii laayay ee argagixisada ah ee maaragtay buuraha gacan dhibac joogay iyo kuwii kale ee la qarameeyay dhammaantood ay ahaayeen maaragtay jabhada argagixiso ah dawladdii Soomaaliland ay ku jiraan maantana aad aragtaan maaragtay maslaha ama qayb hargeysa kamid ah area-daaba inaan la gali karin waxa ku cad Bob harkaha goostay walaalayaal madaxweynuhu markaa isaga ah nooc kasta oo corruption isaga xukuumaddiisuba way ku jirtaa grand corruption ay ku jirtaa xukuumaddu waxay ku jirtaa pret corruption bay ku jirtaa xukuumaddu waxay ku jirtaa syndrome corruption bay ku jirtaa justice corruption bay ku jirtaa dawladdu waxay ku jirtaa dawladdu police corruption booliskii cadaaladii wadanka systemkii wadanka oo dhan iyada ayaa ku shaqaysanaysa dantii guud u adeegeediina way ka leexisay maaragtay shirkadihii halkaa joogay khatarta ahaa ayaa wadankii la keenaya waa idinka arkaya heshiis buu leeyahay wuxuu heshiis leeyahay oo kale Djibouti oo cadowga Somaliland ah wuxuu heshiis leeyahay aad arkaysaan oo uu teegaya marba meesha la yiraahdo qadarna Somaliland ma rumaysna sidoo kale Turkiga waxaad aragtaan in la sheegayaba hadda ay soo baxayso qofka eega oo maaragtay dabagal ah shirkadda la siiyay hadda maxay ahayd toolay wadanka la yiri maamulo oo wadankii maxay ahayd toolay si Soomaaliya loo dhexgeeyo adigu iska aqoon-yahan Dr. Cabdi Cali Daakir oo kamid ah dhaqaalayahanada reer Somaliland kana howlgala mid kamid ah baananka ugu weyn adduunka kana tirsan saraakiisha ugu sareysa ee baananka wadamada Yurub sidoo kalena ah mid muwaadin shahaadooyinka PhD-da iyo masterta ka haysta culumta siyaasadda iyo dhaqaalaha ayaa xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ku eedeeyay inay gashay khiyaamo qaran sidoo kalena waxa uu aqoon-yahan Dr. Cabdi Cali Daakir qarxiyay sir weyn oo la xidhiidha heshiiska xukuumadda Somaliland ay la soo gashay shirkadda dhisaysa madaarka caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa dhaqaalayahan Cabdi Cali Daakir wuxuu uu xukuumadda u jeediyay eedo dhinacyo badan taabanaya oo la xidhiidha 10 bilood ee xukunka haysay xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro haddaba daawadayaal aan idiin kala baxo barnaamijkan aqoon-yahan Cabdi Cali Daakir uu ku lafaguray qodobo aad u muhiim ah daawasho haboon Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh طبعا the big picture ka Somaliland ka muuqda dabcan inuu qof kasta uu xasuusto Somaliland tan iyo xilligii aynu dib u soo noqonay dalkeena waxaa lagu maaragtay caalamka oo dhan ay ka markhaati kacayeen dimuqraadiyad inay jirto amni fiican inuu jiro dabcan Somaliland beesha caalamkuna ay markhaati kacaysay Cabdiraxmaan intuusan talada qaban in Afrika iyo dunidu ay ku dayato Somaliland maamulka ama dawlad wanaaga iyo good governance-ga ka jira qof kasta inuu ogaado marka hore waqtigii maaragtay madaxweyne Cigaal haddaan ina xasuusiyo wuxuu ku suntamay inaynu dawlad la dhisay dimuqraadiyadeed maaragtay tiisiina ay timi oo wuxuu ku amaanan yahay wanaagga maanta jira in Somaliland uu yiri Somaliland waa ka go'day waa ninkii uu horeeyay ku dhawaaqa isaga iyo maaragtay madaxweyne ku xigeenkiisa xilliga Xasan Ciise ahaa ninka labaad ee ku dhawaaqay madaxweyne ku xigeenkii dabcan
wuxuu talada la wareegay sidaynu wada ogeyn daahir riyaalid kaahin isna dalka meel fiican nidaamkii xusbiyadii wuu hirgeliyey dastuurkii weynagii ogeyn dimuqraadiyadeennii maaragtay kobac badan wanaag badan caalamkii oo dhan baa u soo istaagay daahir riyaale kaahin muddadii uu talada dalka hayay daminis dowlad wanaag badan baa intaasoo dhan jiray oo la dhisayay somalilan shacabkeeda beelaheeda iyo dhammaanna waa ka go'nayd runtii axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa yimi isna sidoo kale waxyaabo badan buu dheeraa runtii madaxweynayaashii ka horreeyey haddii ay tahay maaragtay inuu la yimi development inuu ku daray wadankii inuu hirgeliyo maaragtay horumar aad u badan waa waqtigii uu yimi miisaaniyadeennii dalka ama physical government budget dhaqaalihii wadanka lagu wadayey miisaaniyadii dowladdu ay ku socotay spendingkii iyo qaybtii horumarka loogu talagalay oo kobac aad u badan uu gaarsiiyey axmed maxamed maxamuud siilaanyo ilaahayna ha u naxariisto isagii cigaal maaragtay waa baxeen kuwa noolna ilaahay ha u naxariisto waxaa yimi oo isna taladii la wareegay sidaynu arkaynay oo weli caalamkii oo dhan somalilan wanaageeda la sheegayo maaragtay caqabado badan ha iska jireen laakiin wanaageena la sheegayey weliba axmed maxamed maxamuud siilaanyo wax yar inuu soo xereeyey maaragtay gobolladii bariga iyo jabhadihii iyo khatartii wadanka dibaddiisa ka jirtay nimankii aqoonta badnaa lahaa inuu soo xereeyey dabcan axmed maxamed maxamuud siilaanyo ilaahay maaragtay ha ilaaliyo ilaahayna aakhiriya adduunkaba maaragtay adduunka wuu ka tegay laakiin aakhiro ilaahay maaragtay janno fiican hageeyo muuse biixi cabdi baa yimi sidoo kale wanaag baa jiray dimuqraadiyad iyo wanaag baa jiray wadanka waynu arkaynay wax badan oo khatara oo timuu ka dabaashay muuse biixi cabdi wuxuu dheeraa marka madaxweynayaashii hore inaynu fahanno somalilan dal yiri waan la ictiraafaya ma jiro somalilan wadan ama beesha caalamku may oran somalilan waanu ictiraafaynaa ictiraaf baanu siinaynaa laakiin muuse biixi cabdi siyaasadiisa arrimaha dibadda maaragtay foreign policygeenu strong buu ahaa waxa yimi sidaynu wada arkaynay in somalilan la yidhaaho waa la aqbalayaa somalilan ictiraaf baanu bixinaynaa tobaneeyo wadan oo africa asia iyo wadamada awoodda leh ayaa miiska soo saaray dabcan muuse biixi cabdi waa laga guulaystay si khaldan baana doorashadaasi iyo midmadow badan baa jiray waxaa dalkii ku wareegay 10 bilood muddo laga joogo aan dhammaanba cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxa uu ku sawiran yahay beesha caalamkuna ay markhaati ka tahay duniduna ay arkaysaa maaragtay burburka somalilan oo 10 bilood markaad eegto somalilan waxay ka dhaadhacday in looga taliyo maaragtay xamar in somalilan maaragtay lacag laga soo siiyo xamar in arinta hadda taagan oo caawaba aan ka hadlayo aad arki doontaan oo maaragtay in somalilan shirkad xamar laga leeyahay la siiyo ama loo fasaxo in sirteennii wadanka amnigeennii wadanka eeriboorkeennii in lagu wareejiyo waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa maaragtay cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro in dowladdiisu ay ka fog tahay good governance and accountability iyada oo dimuqraadiyadna intaas oo dhan iyo maamul wanaag uu jiray as a matter of fact dowladda cabdiraxmaan markaad eegto waa dowlad khatar ku ah jiritaankeenna iyo jiritaanka waddankeenna markaad eegto dowladda uu hogaaminayo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro xukuumaddiisa iyo isaguba marka hore may fahmin modern state systemka waxa loo samaystay oo qof kasta waa inuu ogaado nidaamka dawliga ah ee casriga ah waxaa loo samaystay territoriga wadanka iyo khayraadkiisa inuu ilaaliyo wax kasta oo khatar ah oo threat ku ah in laga fogeeyo maaragtay haddii wax yar aanin xasuusiyo marka dowladda cabdiraxmaan ciro sidaynu arkayno uu adeega danta guud ee ummadda dowladdii kama shaqaynayso oo waa idinkaa arkaya waxa maaragtay taagan hadeer waxa kale oo muddada cabdiraxmaan uu talada hayay soo baxaysa sidaynu arkayno somalilan khatar in abaab kasta
وماركتي يسوي تاجي أما أويمي سيدنا أركينا عبد الرحمن دولة كستو عالم كا صدح سياسة ضد باع العلوس إن دولة إيدا على جو قياسه الله أرك دولة إيدا هرمر هناك يكوب على قالة إنه يوضح طبعا security policy عبد الرحمن وكو داعي سياسة دا ماركتي أبنيغا إيو إلالة إيو وحي وناك security عالم كا إنه لا شقينا عبد الرحمن وكو داعي طبعا سياسة لربا لباد عالمك modern state systemku inuu fuliyo waxa weeye economic policy iyana wuu ku dhacay oo idinka arkaya dhaqaalihii wadanka xaguu aaday sanad baa dhamaanaya miisaaniyadii wadanku oo 1 bilyan ku dhow xageebay aaday iyana waad aragtaan oo dawladdu ma sheegi karto miisaaniyadii wadanka loogu talagalay wax lagu sameeyay lama garanayo micnaheeduna uu yahay waa wax la boobay wax la weecsaday waa la maqlayaaye iyo wax maaragtay reerihiisa iyo groupkii ku xayndaabnaa loo leexiyay wadanka miisaaniyadu maba aadinba siyaasadda saddexaad ee caalamka oo dhan hortaala waa foreign policy-ga saddexdaas siyaasadood baa cabdiraxmaan wuu ku dhacay oo aad la socotaan wax uu aaday ictiraafka Somaliland beesha caalamka inaynu kasbanno oo foreign policy-geenu diplomatic channels kasta aynu marayno waa inaynu caalamka maaragtay u yeedhano caalamku arko Somaliland caalamku uu ka markhaati kaco wanaaga Somaliland ka jira cabdiraxmaan sidaad arkaysaan abdabay iyo qadar iyo Djibouti waan jeclahay inuu aaday sidaad wada arkayseen waxa weeye nin aad moodaba in uu ka shaqaynayo maaragtay wax kasta oo khatar ku ah Somaliland oo waayo cabdiraxmaan sidaad la socotaan dawladda Soomaaliya heshiis buu leeyahay waa idinka arkaya dhaqaale u soo deynaysa maaragtay shirkadihii halka jooga khatarta ahaa ayaa wadankii la keenaya waa idinka arkaya heshiis buu leeyahay wuxuu heshiis leeyahay oo kale Djibouti oo cadowga Somaliland ah wuxuu heshiis leeyahay arkaysaan oo uu tegaya marba meesha la yiraahdo qadarna Somaliland ma rumaysna sidoo kale Turkiga waxaad aragtaan in la sheegayaba hadda ay soo baxayso qofka eega oo maaragtay dabagala shirkadda la siiyay hadda maxay ahayd toolay wadanka la yiri maamulo oo wadankii maxay ahayd toolay si Soomaaliya loo dhaxgeeyo adigu iska maamulo wadanka meeshii laga soo galayay waxaad arkaysaa 9 bilood in shirkadaasi dawladda cabdiraxmaan ay la shaqeynaysay xiriirka ay kala shaqeynaysayna aan la ogeyn laakiin hadda ay soo baxday shirkaduna ayba tahayba shirkad khatarta balaayooyinka ku saabsan sida maaragtay ku cad iyada maxay ahayd toolay faylkeeda wixii la hayaba waxaad arkaysaan marka cabdiraxmaan wuxuu ka shaqeynayaa waxa weeye uu la shaqeynayaa waxa weeye Soomaaliya walaalayaal muddada uu joogay taa iyadana waxa weeye qof diidi kara ma jiro waana la arkaa maaragtay hadii aad eegto muddada uu hayo talada dalka ama hoggaanka dalka cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro waxa dul hoganaya dhinac kasta walaal markaad eegtaan waxa weeye ku tagrifal awoodeed oo dabcan qof kasta inuu ogaado corruptionku waxa weeye ku tagrifal awoodeed weeye marka nooc kasta oo corruption ah oo maaragtay madaxweynaha waxay ahayd inuu danta guud ee ummadda danta guud ee wadanka interestka wadanka inuu ilaaliyo intuu leexiyay ayuu madaxweynuhu danihiisii gaarka ahaa ugu shaqaysanayaa awoodii uu dastuurku siiyay iyo xasaanadii madaxweynaha iyo kooxdiisa xukuumaddiisa iyo intii uu waxsiiyeyba waxa ku cad bob harkaha goostay walaalayaal madaxweynuhu markaa isaga ah nooc kasta oo corruption isagiyo xukuumaddiisuba way ku jirtaa grand corruption ayay ku jirtaa xukuumaddu waxay ku jirtaa pre corruption bay ku jirtaa xukuumaddu waxay ku jirtaa syndrome corruption bay ku jirtaa justice corruption bay ku jirtaa dawladdu waxay ku jirtaa dawladdu police corruption booliskii cadaaladii wadanka systemkii wadanka oo dhan iyada ayaa ku shaqaysanaysa dantii guud oo adeegeediina way ka leexisay therefore shacabka Soomaaliland way maqlayaan
maanta xusbiyo mucaaridi ma jiraan waxba yaan lagaa qarin labada xusbi waa magaciyaal weeye waa la maqli doonaan waxa weeye waa laba nin ama laba xusbi oo maxay ahayd toolay dowladdu ay maaragtay wax siiso dowladduna maaragtay siday doonto ay samaynayso dabcan somalilan shacabkeedu waxay u baahan yihiin badbaado qaran waxay u baahan yihiin 3 sano mise 2 sano ayaa ka soo wareegtay inta aynu geedi socodka dimuqraadiyadeena aynu ka shaqaynaynay laakiin bal qof kasta oo caawa isweydii walaal inagoon qabyaaladba cid ku maagin ama cidba aynan ku maagin isku dan baynu nahay beesha somalilan oo dhan beelaha degan oo dhan waa isku dan waa walaalo laakiin bal hal isqabadsiiyo walaalayaal muddo 10 bilood walaalayaal dalkeenii inuu weecdo walaalayaal dimuqraadiyadda aynu 33 sano taqriiban ku dhawaadba aynu ka shaqaynaynay in maanta muddo 10 bilood gudahood ah Soomaaliya laynaga dhex arko taa iyada ah corruption ka weyni ma jiro shacabka Somaliland meel kastay joogaan waa isku dan waxa weeye dalkooda waa inay ilaashadaan dowladeena jirta walow aan ogahay oo argagixiso ay tahay oo maaragtay dalka khatar ay ku tahay wixii argagixiso ah oo dhan oo ciidanka leynayay iyada ay galeen oo la arkayo beesha caalamku ay arkayso haddana wixii wanaaga ah dowladda waynu ku raacaynaa laakiin waqtigan hadda la taagan yahay Cabdiraxmaan taladii wadanka iyo hogaankii wadanka wala lumay lamana yaqaan meesha loo socdo aan Soomaaliya ahayn Soomaaliya hadaan eego Soomaaliya dawladii kama jirto dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud caruurtiisa iyo qoyskiisa iyo dhowr nin oo qowleysata ayaa ku xayndaaban dawladdiba kama jirto Soomaaliya dunida oo dhanna way sugaysaa Soomaaliya inayna dawladdi ka jirin dabcan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxa lala yaabo waxa ah oo arkila dalkiisa wanaagiisii oo arkila maxay ahayd toolay wanaaga ummaddu ay rabto Somaliland qof kasta inuu ogaado 2026ka waxaynu aadaynaa 7.7 milyan Somaliland shacabkeeda koror aad u weyn baa ku jira maaragtay sida aan World Bankiga iyo IMF-ta iyo gurubyadan maaragtay hay'adaha lacagta aan u gudbinay wadankeena security-giisa oo ilaashan karnaa dal jira oo caalamka oo dhan la siman baynu nahay Cabdiraxmaan sababta uu arki la yahay ciyaal yaryar iyo maaragtay dad waalwaalan dawladdiisii ay caalamkii maaragtay aynu arkayna fadaaxad kasta aynu la kulmayno dabcan Somaliland qof kasta waa inuu ogaado dariiq khaldan baynu aadnay ilaahayna waxaan ka baryayaa in dariiq fiican aynu aadno haddii madaxweynuhu uu wanaag rabo waxa weeye ilaahay la garab qabto laakiin waxa la yiri qof maaragtay aad arkayso inuu meel khaldan marayo inaad tiraahdo war walaalow wax kale oo la sameeyo lama garanayo Cabdiraxmaan maamulka wadanka uu la ambaday caruur yaryar iyo qoyskiisa wadanka uma dhaaran waa inuu ogaado Somaliland waxa loogu talagalay dhaqaalaheeda maaragtay in ummadda oo dhan iyo dalka lagu ilaaliyo dabcan Cabdiraxmaan ma sheegi karo oo kama hadli karo miisaaniyadda hadda dhamaatay wixii horumar ah wixii mashaariic ee ku jira yaa qaatay yaa la siiyey taa iyada waa gruubka kugu xayndaaban iyo reerkaaga cid kale ma qaadan shacabka Somaliland in la kala koraysiiyo ma banaana dastuurkuna wuxuu simayaa hantida ummaddu ay leedahay in loo ilaaliyo dakhliga dawladda u soo xirooda wixii caalamku ina siiyo in ummadda loo ilaaliyo hanti kasta oo dawladdu soo gasha dhinacay doontaha ka timaado waa hanti ummaddu ay leedahay sidii loogu maamuli lahaa iyaga wanaagooda dantooda guud u adeega ummadda looga shaqayn lahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro talaabo kasta wuu ku dhacay dalkana ma hogaamin karo khiyaano qaran buuna ku jiraa oo weyn haddii aan wax yar ina xasuusiyo muddada uu joogo Ciro talada dalka corruptionka iyo musuqmaasuqa iyo boobka dul hoganayo walaalayaal si aad u aragtaan dabcan waxaynu dhammaanteen ka wada warqabnaa airportka maanta arinta ka taagan oo airportkeeni maaragtay shirkad la iska siiyay dalkiiba maaragtay aad arkaysaan
inuu yahay somaliland is for sale inay ku caddahay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay waxaa caddaynaya somaliland inuu madaxweynuhu xaraashayo madaxweynaha waa in la weydiiyaa dhulkii ku taydsanaa xeebta berbera ee ka caaganaa ee shacabkii deganaa laga kiciyey maxaa keenay jaamaca gaabuush oo mulkiilaha dowladda ah oo adiga in adeerkaa ruma ah walaalkaa ah in la siiyo oo isagu uu yeesho dadkii danyartka ahaydna laga kiciyey somaliland is for sale somaliland waa xaraash dabcan dhanka kale markaad eegto buurta shiikh oo la wada garanayo ilaa iyo inta u dhaxaysa jeelkii la garanayay ee madheera ilaa intaas shirkada carab ay leedahay ayaad la heshiisay oo aad ku wareejisay madaxweyne taa iyada ana waxay ka soo horjeedaa maaragtay khiyaano qaranna ay tahay dalkana ku tusaysa inaanad wadi karin waxa lala yaabo waxa ah maaragtay bankii weynaa ee togwajaale maaragtay isaga laftiisa waad la socotaan shacabku way la socdaan madaxweynaha waxaan ugu darayaa oo qof kasta inuu ogaado ah cabdiraxmaan inuu yahay maaragtay nin aad iyo aad corruptionka maaragtay xoog u yaqaana intuu tegey magaalada booramo yiri waxaan u dhisayaa airport taa iyada ana ilaa hadda madaxweynuhu ma hirgelin sanadkiina waa dhammaanaya waad aragtaan maalin dhaweyd waxaan arkayey airportka oo laga soo duubay banaankii oo ari daaqayo waa idinkii arkayey sidoo kale waxaan u malaynayaa in uu gobol maaragtay isna aan u malaynayo inay ahayd salaxley inuu yiri waxbaan samaynayaa iyana aad aragtaan musuq maasaqa iyo boobka lagu lunsanayo hantidii ummaddu ay lahayd ee hantidu maaha hanti reer leeyahay gaar ah dabcan madaxweynaha waxaa dul hoganaya walaalayaal nooc kasta oo musuq maasaq isaga iyo inta ku xayndaaban waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa cabdiraxmaan inuu somaliland jiritaankeeda uu diidan yahay السلام عليكم ورحمة الله مرلبات دلك مركز اكتو مدة وهي مدحوينة عبد الرحمن محمد عبد الله عرو without security أبني نبت قليو قعنتا أيو كبحي بيش عالمك أيانا غريسة dalal aad iyo aad u badan iyo wadamo aad iyo aad u badan baana hoosta ka xariiqaya in Somaliland maaragtay dariiq khaldan ay aaday muddada uu talada hayay dabcan qof kasta waa inuu la socdo Somaliland waxa soo galay maaragtay ama khatarta ka jirta si aad u fahantaan Somaliland waxa soo galay NISA ama sirdoonka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo muddada uu Cabdiraxmaan joogay waxa soo galay ciidanka maaragtay gorgor niman ka tirsan iyana waxa soo galay maaragtay haramacad baa soo gashay waa dawladda federaalka ciidankeedii oo amniga wadanka iyo wanaagga wadanka iyo dimuqraadiyadda wadanka خطر كوه سلو بابي ماركتي مدحوين عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وأجيهي ون الله صعدا طبعا قف كستوى حنقارسين يا ماركتي إنه international community iyo dalalkii maaragtay inaga ina maaragtay Somaliland la shaqeynayay Somaliland kala shaqeynayay wanaaga Somaliland daneynayay oo dhan waxay qirayaan Cabdiraxmaan inuu xoog u gaabiyay kana weecday dariiqii Somaliland lagu korinayay dimuqraadiyadda iyo maaragtay deganaanshiyaha mandaqada iyo geeska Afrikaba aynu ugu faanaynay madaxweyne Cabdiraxmaan muddada uu joogo si shacabka Somaliland ay u fahmaan oo waa inaad eegtaan ragga ku xayndaaban dhammaantood waxay rumaysan yihiin badidoodu Soomaali weyn oo Soomaaliya maaragtay markii horeba qoladii ina liqday ina qarisay inaga oo dal caalamka la siman xorriyad qaadanay اعتراف helay dunidoo dhan ay marxaati ka tahay maaragtay dalkaas nimankii rumaysnaa oo dhan ayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro dawladdiisa maaragtay hogaaminaya kuna jira waxaad eegtaan walaalayaal dhamaantiin aad arkaysaan qof kasta oo khatar wadanka ku ahaa oo xamar iyo Yurub inaga soo caynayay Ciao Somaliland Hargeysa caasimadeedu jooga
waxaynu dhammaanteen aynu wada ognahay cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro wuxuu ku hadaaqayey oo ahaa inuu cadaalad samaynayo inuu dalka wanaagiisa uu jecel yahay in somalilan maaragtay wanaaggeeda uu rabo uu sheegayey inay soo baxayso aad arkaysaan inuu ahaa maaragtay soomaalidu waxay tiraahdaa bahalka la yidhaahdo dhurwaaga miyuu ahaa mise waraabaha kaciya iyo ka aamusan waxaa khatartiisu ay badan tahay mid ka aamusan cabdiraxmaanna taas ayaa walaalayaal ku cad haddii wax yar aan ina xasuusiyo khaladaadka iyo khatarta badan ee muddada uu joogay dalka ka muuqda waxaynu dhammaanteen wada ogeen beesha caalamkuna ay hoosta ka xariiqday cabdiraxmaan ciro dowladdiisa in ciidankii qaranka raggii laayey ee argagixisada ahaa ee maaragtay buuraha gacan dhibac joogay iyo kuwii kale ee la qarameeyey dhammaantood ay ahaayeen maaragtay jabhado argagixiso ah dowladdii somalilanna ay ku jiraan maantana aad aragtaan maaragtay maslaha ama qayb hargeysa ka mid a eriyadaaba inaan la geli karin maaragtay cid kastana lagu dilayo waxaan arkayay wiigan gudihiisa qof baa lagu dilay lama yaqaano qofku ahaa waxaana lagu xidhaybaa geed baa lagu xidhay oo geed baa maaragtay intii la dilay qofkii lagu xidhay dabcan beesha caalamka iyo duniduba way aragtaa somalilan muddada uu jooga ee 10 bilood aan dhammaan dowladii kama jirto ee waxa ka jira oo beesha caalamka iyo duniduba ay aragtaa cabdiraxmaan waxa ku cad maaragtay in uu yahay maaragtay argagixiso koox ah in wadanka ay hayaan haddii wax yar aad eegto dowladii kama jirto somalilan ee waxa ka jira argagixiso amnigii dalka khatar ku ah kii regionka oo maaragtay amnigii regionka security-gii regionka iyo global security-ga oo ahayd inay isla shaqeeyaan laga ilaaliyo wax kasta oo khatara adduunka regionka iyo meesha aynu ku naallo ayaa waxaad moodaa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro inuu khatar ku yahay global security-ga haddii wax yar aan ina xasuusiyo nimanka la shaqaynaya walaalkii baa ka kow jaamac ninka la yiraahdo oo aad garanaysaan oo maaragtay mulkiilaha dawladda noqday dabcan waxa ka mid ah khadar oo wasiirka maaragtay madaxtooyada ah dhammaantood waa Soomaali weyn khatar bayna ku yihiin ilaa Cabdiraxmaan qof kasta oo Soomaali lagu tuhunsan yahay maaragtay Soomaaliya ka yimi ciidanka ka yimi iyo qof kasta oo khatarka uu jeelka dhigana waan cadaynaynaa waxa weeye Somaliland dawladii kama jirto Cabdiraxmaanna waxa ku cad inuu ka mid yahay argagixisada uu hogaaminayo haddii aad eegto su'aasha aad weydiinayso oo dawladda musuqmaasuq ma ku cad yahay dabcan waxa taagan sidaynu dhammaanteen aynu wada arkayno hadda in ay yiraahdeen dawladdu waxa la maalgelinayaa maaragtay ama la dhisayaaba airportka caasimadeena Hargeysa dabcan marka hore madaxweynuhu waa inuu fahmo dal abnigiisu uusan gacanta ku jirin dal deganaanshihiisu maaragtay uusan gacanta dawladdu ku haynin dalkii iyo territory-geennii oo qayb dhani ay maqan tahay aynu arkayna calamo kale inay ka taagan yihiin maamulo kale inay soo galeen in dawladda Soomaaliya xilligay rabto ay soo gali karto iman karto gobolada bariga aad aragto dabcan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro waxa su'aashu ay noqonaysaa maalgashiga isaga iyo xukuumaddiisu inaysan fahmin walow aan ka cudur daaranayo maaragtay inaan maagana aysan ahayn wasiirka ku hadlay waxaanay ma yaqaano wasiirku xigeenkuna aqoon uma laha maalgashiga dabcan xukuumaddiisu marka waa xukuumad marka hore ka aradan maalgashiga laakiin haddii la yiraahdo wadan waa la maalgelinayaa waxa ku xidhan marka aad ka hadlaysaan maaragtay waxaad ka hadlayseen baan u malaynayaa wax la yiraahdo investmentka waxa ku xidhan cost of capital ayaa ku xidhan dabcan desert the capital of stock waxay iman kartaa maaragtay marka amniga dalka iyo nabadgelyada wadanka dawladdu ay gacanta ku hayso sidaynu ognahay dabcan wadan aanu amni ka jirin ama wadan khatari ay ka jirto ma la maalgelin karaa caalamka cid oran karto waa la maalgelin karaa ma jirto waa been way taa iyada dabcan u laaba marka shirkadda haddii wax yar aan ina xasuusiyo in Somaliland la maalgeliyo dabcan
yes waynu u baahannahay dalkeenna in la dhiso aynu u baahannahay waxaynu u baahannahay kaabayaasheenna in la maalgeliyo waxaynu u baahannahay in dalka laga shaqeeyo beerihiisa la maalgeliyo waxaynu u baahannahay in waxbarashadeenna la maalgeliyo waxaynu u baahannahay maaragtay in la maalgeliyo maaragtay caafimaadkeenna dabcan kobac dhaqaale iyo horumar wuxuu ka imanayaa dariiq saxa markaynu marno oo ah in amnigeennu aynu gacanta ku hayno dabcan markaa kadib oo in securitygeena iyo amnigeenna lagu xidhaa oo ay la shaqaysaa dhaqaalaha iyo wixii horumarka kobaca dhaqaale iyo horumar ummaddu ay rabto dabcan taa iyada marka cabdiraxmaan waxaan u malaynayaa inuusan iyadana aqoon u lahayn dhammaan ragga la socdana waa inay eegaan waddan amnigiisu uusan gacanta ku jirin cid maalgelinaysaa maba jirtaba haddii aad eegto shirkadda maaragtay la yiri heshiis bay la gashay dawladdu dabcan shirkadda markaynu eegno marka hore shirkadda iyo dawladdu waa tuug iyo tuukalkaal waayo shirkadda sidaynu la wada soconno lamaba yaqaanaba waxa faayilkeeda garan kara iyo waxa ay ka shaqayso lama garanayo meel baa waxa ku taalla inay amniga iyo wax u dhow khatarta inay kala shaqaysay dawladda Soomaaliya inay kala shaqaysay dabcan shirkaddan iyada waa shirkad turkiga bayskeedu uu noqonayo dabcan turkiga Soomaaliya ayuu rumaysan yahay ee Somaliland iyo dalkeena ma rumaysna madaxweyne Ciro su'aasha imanaysa waxa weeye Soomaaliya muxuu ka raadinayaa waxa uu raadinayo oo shirkaddan uu wadanka ugu soo leexiyay dabcan qof kasta waa inuu ogaado jiritaanka Somaliland اعترافك Somaliland dal inaynu noqono ayuu madaxweynaha iyo groupkiisu ay ka shaqeynayaan waayo shirkadda waxa ku cad inay khatarta ay qayb ka noqonayso khatarna ay abuurayso waxa soo baxaysa 9 bilood uu madaxweynuhu joogay inay xidhiir la leedahay shirkaddu ayaa soo baxaysa dabcan shirkadda iyada shacabku way maqlayaan qof kasto ay dhageystaa waa inuu shirkadda qofka u shaqeeya iyo wadanka haday soo gasho in la laayo oo la dilo ayaa waajib ah si aad dalkiina iyo wadankiina aad u ilaashataan cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi Ciro iyo groupka la socda waxay khatar ku yihiin walaalayaal jiritaankiina waxay khatar ku yihiin maaragtay wanaagiina dabcan shacabka Soomaaliland waa isku dan laakiin madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi Ciro sida muuqata koox gaar ah iyo group gaar ah ayuu wuxuu u yahay maaragtay madaxweyne mana qabo mana rumaysni in uu Somaliland uu wadi karo dabcan arintan soo baxaysa oo la leeyahay madaarka la maalgelinayaa waxa weeye madaxweynaha wasiirkiisa madaxtooyada iyo wasiirkiisan kale ee qaabilsan maaragtay madaarka qaabilsan intuba khiyaano qaran bay ku jiraan haddii dastuurka Somaliland uu shaqaynayo saddexdooduba khiyaano qaran bay ku jiraan waa in jeelka loo taxaabo dabcan taa iyada wax uga dhow Somaliland ma jirto khiyaano qaran buu madaxweynuhu ku jira iyo groupkiisuba waxaana cad oo arkaysaan inuu Soomaaliya la shaqaynayo waxa cad oo arkaysaan Xasan iyo isaga inay dhiil ka dhaxeeyaan si loo diido Somaliland wanaageeda cid u dul qaadanaysaana ma jirto cabdiraxmaan qof kasta oo maqlaya waa inuu ka fogaado waxa ku cad khiyaano qaran wuxuu ku jira high treason meeshii ugu koreysay oo khiyaano qaran buu ku jira madaxweynuhu maaragtay